السلام عليكم أصحاب شرفت السود وهذا مقال كان maanta waxaan doonayaa inaan kugu sharaxo maxaa keena ku margashada mise qofkii inuu cunada ku seexato maxaa sababi karo qofkii inuu aadanka wuxuu leeyahay laba hunguri labada hunguri waxa la kala yiraahdaa the trachea iyo esophagus the trachea waa hunguri cadaha ee hawada marto ee hawada mis oxygen-ka geeya sambabada the esophagus waa hunguri madoobaha kaasoo cunada iyo biyaha geeyo caloosha labada hunguri waxa u dhaxeeya carjow loo yaqaano epiglottis waxayna xirtaa hunguri cadaha marka uu qofka wax liqayo mise cabayo mararka qaar marka waxa dhacdo in uu qofkii maskax ahaan u mashquulsan yahay ama uu maskax ahaan u maqan yahay uusan attention siinaynin waxa uu cunaya mise markaas uu cabaya marka waxa dhacdo maskaxda inay ilowdo inay xirto hunguri cadaha oo ay ku daboosho meesha epiglottiska ay ku daboosho mise carjowdi ay ku daboosho kadibna marka oo kale qofka waxa ku seexanaya cunadii ama biyihii uu cabay ayaa ku seexanaya cunada markay qofka ku seexato waxay xiri kartaa bataatan hunguri cadaha dhan bay xiri kartaa oo qofkii oxygen-ka ay ka jari kartaa oo qofkii naqaska ayaa ku dhagaya heer uu gaaro inuu qofka uu meer daboolmaba xitaa haddii aan qofka marka gargaar degdeg loo sameeynin waxay sababi kartaa ku margashada in qofkii ay naftiisa galaafato oo qofkiiba geeriyoodo ay sababi kartaa sidoo kale cunada qofka ku margatay marka qaar waxa dhacday inay u dhaadhacdaba ay hunguri cadaha inay dhaafto oo u dhaadhacdo sambabada markay u dhaadhacdo waxay sababi kartaa wax loo yaqaan aspiration pneumonia oo ah nooc fureen ah mise caabuq ku dhaco sambabada ah kadibna meesha infection ba ka dhasho qofkana noloshiisa khatar ay galaysaa sidaa darteed si looga ilaaliyo marka qofkan ku margashaa si looga ilaaliyo waxa muhiim ah qofka markuu wax cunayo iyo markuu wax cabayo in uu attention gaar uu siiyo oo macnaha cunadii maskax ahaan qofka inuu joogo macnaha sidoo kale ku margashadan waxay ku badan tahay dadka qamriga uu laclaca ka dhigay dadka neerbahan oo xanuunsan ama dadka neerbaha qabo xiyalaha dhan ama dadka drug users-ka dadka debilitated state oo aad u xanuunsan way sababi kartaa sidoo kale dadka da'da ee waayeelka waxay ku margani karaan si fudud bay wax ugu margani karaan insha Allah waxaan ka soo hadli doonaa qofka ay wax ku margadeen gargaarka degdeg ee loo fidin kara hareera socda